balamo badan baan isbitaalka ka samaystay way iga daahayeen xoogaa marka halkaana imid lonely school baan imid marka waxaa laygu yiri diyaar waa geli kartaa foomkii baa laygu magacaygu waxaa la yidhahdaa Yuusuf Cabdulle. Okay. Yusuf maanta xaggan ujeedada u tin maxay tahay? Ujeedada walahi aan ugu mid waxa weeyaan inaan istalaalo laakiinse kulli qorshaha iguma jirin waan soo maray balamo badan baan isbitaalka ka samaystay way iga daahayeen xoogaa marka halkaana imid lonely school baan imid marka waxaa laygu yiri diyaar waa geli kartaa foomkii baa layga buuxiyey iyo sharcigii baa laga qaaday sidii baan ku qaatay vaccinka marka noo timid maanta xaggan timid wax cudurdaar ah wax ku dhibaateeyo xagga registrationka iyo ma kala kulantay wax anything maya wax soo dhaweyn fiican baan kala kulmay dad badan oo diyaar ah oo dadku howlan oo maaragtay diyaar u ah ay noocba si fiican baa lasoo dhaweeyey injection waa qaatay insha Allah waxay igu raadeen 3 isbedel haddaan ka weyno waan ku direynaa dabeedna waxaa nooga warantaa talaalkii marka meesha miiska soo dhaweynta lagu geeyey magac lagaa qoray waxla badan lagaa gudbiyey lagaa information lagaa helay sidii baa ku soo gashay talaalkii hadda waa qaadatay iminka dareenkaagu siduu yahay haddan ka hadla wallaahi alxamdulilah hadda wax aan dareemayo oo aniga hadda jirkayga isbedel aan ku arkay ma jiraan sax waxaan ahay qof caadi ah sidaan ahaa ayaan baan ahay I don't know what's happened tonight or something lakin now I'm feel okay marka maanta dareenkaaga ka u yahay oo ku cabirta saas maxaa bulshada Soomaalida u sheegaysaa bulshada Soomaalida waxaan kaga wacyi gelinayaa in ay ayagana maartay istalaalaan oo cudurkan oo muhiimadiisu waxa weeyaan ka hortagga talaalka inay qaataan talaalka ayaan ka baqan qofka waxa weeyaan ama diabetes qabo ama yuusa qabin diabetes dhakhtarka waan weydiiyay diabetes qolooyinka qabo waxay igu yiraahdeen waad qaadan kartaa marka dadka waxa ku waan lahayn inay qaataan marka bulshada waxa uu sheegaysaa kii cudur qabo ama kii shakisan ama qofkii ka qabo ma garanaysaa cabsi ka qabo inuu qaato cudurkan waxa bulshada u sheegaysaa inay qaataan ku dhiiradaan inay qaataan intaad walwal iyo balaayo ku jiri lahayd adoo iska qaataa lagu qaatay oo ma aragtay caafimaadkaaga ilaaha caafimaadka haya laakiinse waxa muhiim ah inaad qaadato oo injectionka aad qaadato taas aniga kulli marka maanta waxa qaadatay hal shadkii ugu horeeyay maxaa balan lagu qabtay shadka labaad xilli ma balan kii labaad waxa la qabtay I think 22 la qabtay bisha shanaad isla xaggan meeshan hadda aan joogno iskoolka lonely elementary school baan imaanayaa 25 bay qabteen markaas bay kii labaad igu dhufan haduu alla yiraahdo aad iyo aad baa u mahadsan tahay imashada timid xaggan adigoo is-resis green walking distance oo samaysay walking oo soo gashay oo sida fudud oo qaaday talaalka aad iyo aad baan kaaga magaranaysaa mahad celinayaa imashada timid waxaan ku rajeynayaa nabad qab iyo barshada barwaan ku rajeynayaa insha Allah idinka mudan waa mahadsantihiin soo dhaweynta ay soo dhaweyseen aad iyo aad mahadsantihiin thank you